shirka wada tashiga wasaaradaha caafimaadka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda dhexe ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. shirkan oo ay martigelinayso wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana dib u eegis loogu sameyn doonaa waxyaabihii ka qabsoomay shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sanadkii tagay. shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur, wasiirada wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland iyo waliba Koonfur Galbeed. mas'uuliyiintan oo furitaanka kulanka hadallo ka jeediyay ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta qiimaha badneed ee wasaaradda caafimaadka Puntland ugu sameysay magaalada Garowe. madaxdan ayaa sidoo kale waxa ay isla qireen ahmiyadda dalka uu u leeyahay shirkan waxayna rajo wanaagsan ka muujiyeen in uu natiijo wanaagsan ka soo baxo. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo shirka si rasmi ah u furtay ayaa ugu horeyn kaga mahadcelisay wasaaradda caafimaadka Puntland martiqaadka wanaagsan iyo waliba sida ay u fuliyeen ballanqaadkoodii hore oo ay u sameeyeen. sidoo kale wasiir Fawziya ayaa ka hadashay muhiimadda ummadda Soomaaliyeed uu leeyahay shirkan maanta ka furmay magaalada Garowe. walaalayaal shirkan muhiimadiisa ma aha inaan waqti ku bixiyo wasiiradii saaxiibada ee soo sheegay iyo agaasimaheena guud. 3 maalin waxaana sugaysa oo aan wrap up kusoo sameyn doono wixii soo qabsoomay, waxyaalihii aan qabsoomin, maxaa cusub oo soo kordhay, dadka markay kala maqan yihiin aysan waqti ismaqlin waa la soo dhaxmaraa si xooga. wax kalena ma aha kala fogaanshaha dad isjecel oo walaalo oo wada shaqeeyanahay. wax walbo ups and down markii la wada fariisto waa laga gudbaa. waxa laga yaabaa waxyaalo si qalad loo fahmay, waxyaalo si kala loo sheegay, sababo badan awgeed ma galayno. maanta waxaan u joognaa wax allaala wixii aan qabanay 2 dhinac, 3 dhinac, 4 dhinac wasaaradaha dhan inaan isu soo bandhigno wixii aan wada leenahay, sida loogu wada shaqeynayo, wixii gaar idin ah saad uga shaqeyseen noo sheegtaan, annaga dhexdeena aan kala faa'iideysano khibradeen sababtoo ah waa kala awood badan yihiin wasaaradaha. marka in ma aragtay qofkii meel ku guuleystay uu noo sheego waxyaalaha sameeyay. hadda waxa ugu dambeeyo hadda runtii nalagu haysta dhammaanteen sababtoo ah gobol waa ka hooseyn karaa gobol, laakiin vaccinationkii COVID-19 waxaan lagu haystaa waxba la idin hadiyadeeyay mana isticmaalin. dhageysta wadamo badan oo Afrikaan iyo kuwa nagu deeqa naftirkooda wadamadooda aad u hooseeya. annaga immunizationkeeni intana waa wada fadhiyaan inta badan agaasimayaashii policy iyo planning way wada hooseeyaan iyaga naftirkooda, laakiin annaga maadaama wadan deeq la siinayo deeq ku nool aanna sababta uu u yaryahay la weydiinayo. Puntland waa ognahay Soomaaliland sidoo kale lama joogaan, laakiin inay ka horeeyaan gobolada kale. waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano bal maxaad sameeyeen annagana aan sameyn karnaa, maxaa waana tala sababtoo talada adiga ka maqan walaalkaaga ku jirta waa kala faa'iideysanayna insha Allah ta'ala. waxbaan kala baranaynaa waa wada tashanayna meel dheer gaaraysa, laakiin marka la kala maqan yahay waxa badanaya daniga, waxa badanaya isdhigashada naftirkeeda. marka waxaan rajeynayaa 3 beri oo inoo yeelan howlo badan. mar raba hadalka inaan ku dheeraado aad iyo aad idinka mahadcelinaya Puntland soo dhaweynskiina quruxda badan leh. waa mahadsantihiin. shirkana waa noo furan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aadan cali axmed VOS TV magaalada Muqdisho.